cabdiraxmaan ismaaciil cumar oo ah nin dhalinyaro oo dhowaan la aqalgalay haweenay lagu magacaabo aamine muuse awdiriye islamarkaana qofkii loo malaynayay in malxiisadu ahayd gabadhii aroosad ahayd la ogaaday inuu yahay nin rag ah ayaa waxa uu markii ugu horraysay warbaahinta uga warramay siday wax isku beddeleen. cabdiraxmaan waxa uu sheegay inay gabadha iyo ninka malxiisada ahaaba ay xidhan yihiin kiiskoodana ay gacanta ku hayso maxkamaddu. gabadha lahaa aaminaan guursaday markii aan guursaday kadib sanaain waan la soo wareegay markii aan la soo wareegay guriga la soo wareegay reerka la soo wareegay ayay soo raacday intaas gabadhaas markii hore la socon jirtay markii inta tahay la socon jirtay aan guursanay la socon jirtay ayaa markii dambe soo raacday kadib 20 cisho ee guriga uga noolad kadib dabeetana iyadoo gabadh ay uga noolad guriga iyo xaafadda ku nool markasta way naqaameen miya ma naqaameen qaabku marka meelaha u baxaysan bixin jirtay laakiin waxay xidhan jirtay dharkii dumarka iyo labiskii shisheeye roob burusha in qalin sunne in labisii dibna wax walba marsan jirtay wixii dumarka marsan oo marsan jirtay dabeetana ma aan dareemin xaafadii ma dareemin marka gabadhan iyada isku wadatay marka hore magaranaysa oo guriga ku wada noolayeen bal sayimka markii dambe la xaqiijinayo guriga ku wada noolaayeen oo ay u shaqeyn jirtay gabadhan xaafaddan inanka yar u shaqeyn jirtay dabeetana sidaasay guriga ku yimaadeen marka kadibna 20 cisho markay guriga noolayd ayay galabtii dambe iga tagtay markay iga tagtay dabeeto hooyadii oo doonaysa ayaa timi gurigii markay timi ayay xaafadii weydiisay aaminay ma inankii cabdiraxmaan kula joogay marka xaafadii maqlaysay ma tidhi cabdiraxmaan lama joogin waxa la joogtay inan la yiraahdo asma dabeeto saasay ku fashilantay arrintii iyaga fashiliyay markii dambe anagu waxba ma ogaanin marka maxkamadda waxaan saldhigaan geyn saldhiga iftimaan ku soo xidhnay inankii iyo gabadhiiba baa doonteen markii saa ay hooyadii tiri ma ahayn gabadha inankaygii baa habay tiri markii ay caynka tiri gabadhii iyo gabar kale walaaliyiin oo guriga tilaga soo wareejiyay ayaan xidhnay oo guriga intaan ugu yeedhay guriga keenay ayaan ku arrintaas dhacday dabeetana arrintaa ka warrama waan waxay arrintaas u jirtaayo ninkaas waa waxaan inaan muhayn marka xaafadii baa ku kacday oo tiri maxaa dal orin noogu qarinaysan ayaa habliyo la saxan jirtay ayaa xanaaqay oo meeshii shiiday maxaa dal noogu qarinay isla mar saasan ku xidhnay saldhiga ku geyn markaan saldhiga geynay labadoodii walaal ahaa ayaan ninkiina keena markaan wixii iyaga keeno markii dambe naloo keenay isagoo nin caadi ah oo dharkii rag xirma ayaa saldhiga la keenaa. dhinaca kale cabdiraxmaan oo la weydiiyey sababta keentay in laga dareemi waayo ninka malxiisada u ahayd ee iska dhigaysay dumarka maadaama uu la joogay muddo ku siman 20 cisho shakinigama gelin xaafaddu way dareemaydo wax dareemay waxaan waa nin deemana aniga ilaa loo cadeeyay reerkoodu bacdi fashiliyay anagu ma dareemin waxba ma dareemin inanu banaysan. waxa uu ka hadlay waqtiga uu la soo sheekaysanayay gabadha uu guursaday waxaana uu tilmaamay inuu ka hor la sheekaysan jiray islamarkaana taleefon kala hadli jiray ninka malxiisada isaga uu noqday gabadha internet guursan ka hor marka ruuxan la sheekaysan jiray inaan qofkan kan isbedelay ay marka hore la sheekaysan jiray marka wuxuu anu diyaar ma yahay inaan noo shaqaysa ayaan baraya marka saadirtii inuu bareekan markii uu barayna inaan walaalayiin baa ila soo hadashay telefoon miisanayay marka waxay tidhi inaka cabdiraxmaan ma adiga ayo markaan ku lahaa laakiin inanta ayada ma sheekaysan waxa inantii naga la tagay baa leeyahay noo kaalayo de waxba la tagaynaa cabdiraxmaan oo inanta kaalay ka xis oo caadi u soo fadhiisay si caadi ah saadirtii taatan ku galay markaas taatan gabadha ku guursan. cabdiraxmaan ayaa si dareen leh waxa uu ka hadlay inuu waqti badan ku biilinayay gurigiisa gabadhiisii ahayd xaaskiisa iyo gabadhii loo haystay malxiisada ee markii dambe isku beddeshay ninka waxaana uu ka warramay qaabkii markii malxiisadu ninka isku beddeshay la ogaaday uu dareenkiisu noqday. maxkamadda iyo saldhigaba si wanaagsan noola shaqeeyeen marka waxaan ka codsanaynaa culimaa diinta iyo wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo odayaasha dhaqanka iyo dadka islaamka inay naga caawiyaan oo arrintaa nala eegaan oo soo garab taagaan oo noogu yimaadaan dee arrintan dhici jirta maaha waxaa nagu dhacay dhibaato xoog leh baa nagu dhacday reer dhanoo burburay guurkii khasaaroobay iyo reerkii iyo wixii magaranaysa oo dhan baa nagu dhacay dhibaato weyn baa nagu dhacday marka nalala eego arrintaa la yimaado wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo culimaa diinta iyo odayaasha dhaqanka nala eegaan dadka islaamka oo dhan waxaa kala kulmeen inta badan guriga ma joogin roodhi baan qaadi jiray magaranaysa maalintii oo dhan maqan jiray habeenkii inta hore oo dhan koobiyo tobankan habeenimo niman jiray marka iyadoo iska tagtay xaafadii aan geeyey tagtay ayaa niman jiray magaranaysa marka dee halkaas muddo ku biilin jiray oo ku hayay labadooda ninkii naagtaas utade ima la ku biilin iyo ku ilaalin iyo u shaqaynayay marka
dhinaca kale waxa uu ka hadlay markii maxkamaddu su'aal ka weydiisay waxa ku sababay inay dhacdadani sameeyaan jawaabtii xaaskiisu ka bixisay arrintaasi iyo xidhiidhka ay reerka gacalka yihiin arrintan ugubka kuwa dhaqanka islaamka kala soo sameeyeen waxay ku dooday waxay u kalifay waxay u kalifay jiray wuxuu dhan jiray markii horeba sheekada markii horeba waan sananu ismaal jirnay guriga joognayba aan caynkan qaban jirnay marka tii guriga la joogay maxaa la yimaadeen dii laba qof oo isoo tumay markii horeba xagaa isku gutay xagaa isku gutay lama soo way noo yimaadeen laakiin waxba lama xajisan waan wada noomanayda si caadi noogu iman saldhiga yimaadeen waxay ku nagu ilaahin dadkii cadcideen iyo reerkiina wax dhidheen marka aan reer nooma hadee qofka wataa yahay ninka labadan ninkeena ka taysatay haayeen ay noqdeen marka reerkaasi nooma iman noomana isku fadhiisan marka waxaan warqnimada in macal reerkooda ku ogaayeen iyo magaranaysa xaafadii iyo wixii wada isku ogaayeen ayna ku ornaalka saatan malayna inan baa xidhan layidhi waxay yidhahdeen mariinoo keen jirtay marka horeba isku xaafad ahaayeen inantaas ma xidhan laakiin faamiligooda gabadhii kala soo wareegin gabadha soo wareejisay gurigeeda laga soo wareejiyey ina moogay degan tahay ma garanaysaa marka iyadoo lama soo anigu waan xidhabay laakiin waa la sii daayo saldhigaa sii daayay gabagabadii waxa uu fariin u diray dhallinyarada guurdoonka isagoo uga digay inay ka digtoonaadaan malxiisadaha oo uu sheegay in isbeddelkoodu bateen waan la iska baadhaa la iska hubsadaa deeli waxa kale wax dhici jiray maayo cabdiraxmaan markii la weydiiyey ninkan gabadha isku bedelay la yidhi markii maxkamadda la geeyey maxaa waxaan kugu kalifay muxuu ku dooday horta wixii wale marka leeyahay waxa ma sameysay horta wali waxay ku kalifay lama weydiinin anoo lama cadayn laakiin marka leeyahay waxa ma sameysay midhaha wax walba habeeliin oo waxay dee qiranayaan wax qiraal way ilaa maxkamadda ilaa saldhiga wax walba qiraal marka wixii ku kalifay dee laakiin igu waxay aabahay bay dili jiray oo aan magaranaysa daabina kan joogina gabadha guriga joogtay dhinaca kale Safiya Xasan Cumar oo guriga la joogtay malxiisadii inanta ahayd ee isku bedeshay ninka ayaa dareenkeeda cabirtay waxaana ay sheegtay inay argagax ka qaaday markii maxkamadda la soo taagay gabadhii ay u haysatay malxiisadda oo shaadhiyo surwaal xidhan daahidna anagu inta ay nala joogtay dhowr iyo 20 yaalano inan baan u arkaynay inan yar inan baan u arkaynay walaasheed caawinayso la joogta marka inta ku yiri walaal maxaad inantan yar ee Fariida ninka ka qaadan doonta asmaa aaminaye inantaas ma isdaafi ninka ka qaadan wallahi waa Fariid yare isaga waxa tireel baan nayo abooyad baa tiri inta iskuulku fasax u gaadhay ilaa ku noolatay daa inantaas soo dirin marka saatina dama naan shudeyno waa iska aamusnay marka halkan dariiqa noo maraysa inay yaro waxaan moodayno si fiican reerka u shaqeynayso nin khayr kulka dharka jirka meedhanayo biyaha guriga u dhigi jirtay suuliga u dhigi jirtay tiisumay maamulsan iyada maamul jirtayba ninkan inta rasmi ah ninkan noqotay ayaa maamul jirtay reerka saliida madaxa la marsaday haday tahay inka iyada u keen jirtay kolkaas aan jiray aaminay in qoyan baa tahay anagu dawaan kala xishoon jiray inanka seediga waa laga xishooday inantaada qureecda u gaado ninka ku qaba oo inanka hoos dirina ka jooji waxan noo meedhan jiray waa aamin jirtay iyaga is ogaana waxan wuxuu yahay hadalka ma keen jirin marmar ba halkaas aan xanuunsan jiray macaani Allah waxaan jiray aaminay Allah cod weyne waan ka naxay wala marka ay tuure kulaan jiray waan ka naxay balay codka weyn markaas oran jiray ninkii maxay safay leedahay cod weyn baa tahay ku oran jirtay horta codka dara dib u duubi jirtay qolkan yar codkeeda yar dareemayna naabasha codkeedu maxay tahay waxani way yar duubi jirtay codka marka inaan tayrin yar waxaan ma sid fiican u tababar fiican la siiyay malmada jiray wallahi waa inaan markii la yiraan maxkamadda ku arkeen arkay wajigeedii wallahi ma tana asmaa ma ku ma tana asmaa marka waxba la ismarmarin jirtay miyaa oo iskama qaadeen baamti iyo qasilka kol wajigeeda may dhimi jirin hadda in yaro 5 mirir may maqnaan jirin wajigeedani dhooban bas ma saan jirtay waxaan habluus mariyaan emta qasilka da waxa habluus mariyaan bis marin jirtay naasay robosh isku sameysay guud yaro dhimatiman dheer isku sameysay deena yaro si fiican oo tababartay iska leedahay biyaabis baahan jirtay walaalo oo ma sha Allah ina si fiican oo tababartay ma jirin waxaan jiray aaminaa inaan tayar Fariid inta halka farsta kaabada aaminaa man yeeray aaminaa inaan tayar Fariid waxaan ka yaa wiilka Cabdiye ina ka qaat adoo yar qabuuba taayaan ku yiri inaan ta Fariid saamin ko maamulaysa jirka meedhiga u dhigaysa biyo ku dhaqanayo ee saliidii u dhigaysa qadada siinaysa way ka qaadan inta istaafi ma hadli jirin Maxamed Jiglan shabakada caalamiga ee Harwanaag magaalada Hargeysa